ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM waxa lagu xasuustaa ama ay ku suntan yihiin halgamayaal dadka iyo dalka u kacay xilli adag oo lagu jiray xaalad geeridu nolosha dhaantay. SNM waxay ahaayeen halgamayaal halis badan u soo maray Soomaaliland kuwaas oo mahlaka nafahooda u galiyay una soo horay wax kastoo nafahooda ugu horeyso taasi oo u yeelan siday dadkooda ugu noolaan lahaayeen xorriyad iyo dimuqraadiyad. waa dharaaro la soo maray oo mudan xusuus iyo in la xuso kuwii dhab u wada lahaa midhaha guusha maanta lagu naaloonayo. halganka rag badan maanta u hurdaan xabaalaha waa mid ka dhashay markii dawladii la wada yeegleelay ee Soomaaliyeed isu bedeshay dad qalata ku dhaashata dhiiga shacabkeeda iyadoo aan loo aabayeelin cidnaba. wixii saawa dhacay ee dhiiqubadiya dib lahaa waa kuwii dhalay in ninkii geesiga ahaa dhinaca dhulka dhigi waayo oo gogosha diido. waxaa xilligaa kacaankii jambiga furay rag gunnimo geeri dhaafsaday. waxaa duurka galay shuhadadii ugu horeeyay xaq dirirka ahaa shacabkii loo yaqaanay gobolada waqooyi oo ahaa kuwii ciribtirka iyo xasuuqa uu ku socday ayaa mar qura isu wada bedelay naftii hore. halganka maalinkaasi bilaabmayna waxa uu qaatay sanado badan waxaana lagu afgambiyay awoodii Afrika ugu weyneed oo ahayd dawladii militariga ee kacaanka quwadeeda ay soo adeegsatay. wixii dhacay ka warankeeda waxa ka horeeya sidee wax u dhaceen waana ta ugu horeysan kaga hadlayna warbixinteena koobaad ee maanta. waxaad in badan maqashaa taariikh ku saabsan ururkii SNM iyo halgankii dheeraa ee Soomaaliland lagu xoreeyay. haddaba xogtan kooban waxaynu isku weydiin doonaa su'aalaha ay ka mid yihiin sidoo halganku ku bilaabmay, yaa bilaabay, yaa ugu badnaa halganka, yaa bixin jiray dhaqaalihii ugu badnaa ee dalka lagu badbaadiyay, yaa lahaa biladaha geesiga. dadku kamay wada marnayn halganka balse waxay ahaayeen kuwa ku kala mudan keenida u dhimashada iyo dhibka dhiidhiga lagu naaloonayo midhihiisa in ka badan 30 sano kadib xorriyadda iyo nabadda ay Soomaaliland maanta wada harsanaysa taas oo ka dhigan midho ku baxay dhiiga geesiya xabaalaha haatan hurda. sida ku xusan taariikhaha loo yahay taariikhaha la xabaala ama la qariyo deegaanka qirra iyo bulshada uu ka soo jeeda waa kuwa ku xusan cidana la xisaab ahayn bilow ilaa dhamaad halgankii SNM iyo magacyo weyntiisii. markii cadaadiskii xukuumadii kacaanku tira beelay markii caadaysteen ciribtirka beelaha waqooyi ayuu halgankii ugu horeeyay bilaabay. raggii ugu horeeyay ee talaabay ee bilaabay halganka ka hor 4 sarkaale uu kamid ahaa Maxamed Kaahin waxa hogaaminayay oo ahaa ninkii ugu horeeyay Mujaahid Maxamed Cali. dagaalkii ugu adkaa waxa galay dadka uu deegaan ahaan ka soo jeeda Cabdiraxmaan Qirro waxaana kamid ahaa 83kii jabintii jeelka Mandheera. waxa ciidanka ka soo diray gaashaamo Maxamed Kaahin waxaana hawlgalka iska lahaa Allah u naxariistay Mujaahid Lixle isaga ayaana jabiyay jeelkii halista badnaa ee Mandheera. ciidanka halkaasi galay ayaa u badnaa isla deegaanka uu ka soo jeedo Qirro halka baaqiga kale ee ciidankuna ay ka soo jeedeen deegaanka Maxamed Kaahin waxaanay ahaayeen labadaasi deegaan oo soocan cidi tarixin. dagaalkii buuragalka waxa qayb ka ahaa Mujaahid Maxamed Cali afduubkii diyaaradda 84kii waa bishii November ee labada nin ee fuliyay ayaa ka soo kala jeeday deegaanka Qirro iyo bariga magaalada Burco. 83kii waxa la qaaday weerarkii lagu la baxay Naaskar waxaana lahaa weerarkayna Koodbur oo Mujaahid ka soo jeeday isla deegaanka Qirro. iyaga ayaa hogaaminayay halgan kasta oo qaraaraya 85kii dagaalkii weynaa lagu qabsaday Bisiqana waxa hogaaminayay Mujaahid Axmed Mire. 27kii May 88kii ciidankii Burco galay waxa watay isla Mujaahid Axmed Mire. 28kii May 88kii Mujaahid Maxamed Cali ayaa jabiyay jeelkii Mandheera waxaanu ka soo daayay maxaabiis badan oo dulmi u xidhnaa. maalintii kale ee xigtay waa guuleys xige 29kii May 88kii Mujaahid Xuseen Dheera ayaa galay Cadaadley waan u qabsaday. 17kii Oktoobar 84kii dagaalkii lagu qaaday Burcaduuley Lixle ayaa hogaaminayay waxaanu ahaa weerar aad u halis badan waana dagaalkii uu naftii hore Lixle ku shahiiday. daraartii uu Lixle shahiiday waxa BBC la wareysi siiyay Siilaanya waxaana hadaladiisii kamid ahaa SNM waa wada Lixle. Siilaanya isagoo arka daaqada ku banaanaatay maalinta isagoo arka ergo'anka uu joogo isagoo arka in SNM agoomowday ayuu ereyga u yiri bal inuu baaqiga SNM ugu laab qaboojo iyo in halgankii dheeraa ay muddada dheer ku jireen aanu noqon mid fashil lagu soo afmeero. beelweynta uu ka soo jeeda Cabdiraxmaan Qirre waxay ka dagaalamayeen dhammaan deegaamada xuduudka ay xuduudka ka hooseeya waxaanay ahaayeen dadkii ugu tirada badnaa ee ka dagaalamayay dhammaan deegaamadii dagaalada ugu adkaa ay ka socdeen waxaana kamid ahaa Beledhig, Labisagaale, Bisiqa, Buuhoodle, Inay Guuxa, Faraweyne, Qoolbulaale, Tooniya deegaamo kale oo tiro badan. waxay ahaayeen kuwii bixiyay hantidii ugu badnayd ee SNM guusha ku gaadhay. waxa ku fakhriyay tijaar badan oo deegaanka Qirra dhaafsadayna maalkoodii inay maruun helaan nololtii ay ku jireen dhaanta. sawirka xogtani xambaarsan tahay oo waliba mid aanu soo koobayn haddana waxaad ka dheehan kartaa in halganka SNM uu ahaa mid cid gaari si gaara ugu suntanayd. waxaad baqashay wuxuu ahaa tacabkii SNM cidda geysatay iyo kuwa aan la'aantood guuli dhalateen. waxaad xog badan ka heshay wax in badan aad maqashay haddana moogan
deganayd. haddaba xiliyadan dambe waxaad aragtaa iyadoo madaxda kulmiye hoggaanka u hayay Somaliland muddada dhowr iyo 10 sano ee u dambeeyay ay si gaar ah ugu durayeen xisaabta mucaaradka inay qabaan muxibbaa Soomaali weyn. ujeedka laga leeyahay dhagartan qar oo kaliya ayaa in laga riixdo kursiga dalka deegaanka ay ka soo jeedaan mucaaradka waa Ciro iyo Faysal waa dadka aan kaga hadalnay warbixintan waana beesha lahayd halganka qaran ee nafiya maal hurka waana beesha ugu ballaaran ee Somaliland waxaanay degaan 5 gobol oo kamid ah 6 gobol ee Somaliland ka koobantay waa beel tira ahaan ku dhawaad kala bar dadka dega Somaliland waana dadka dhaliyay xurriyada dhidibadana u taagay in la isku dayo in la duusiyo taariikhda dadkii lahaa seeska halganka in marar badan laga been sheego taariikhda iyo in muhmal la galiyo tacabkii dadkii qarannimada salka u dhigay iyo in markan lagu duro inay yihiin kuwa doonaya waxay shalay ka dagaalameen dalkana ka xoreeyeen oo ah dulmigii Soomaali weyn iyo in markan lala doonto dulinimo ay hore u diideen iyo hadallo aan daw ahayn waa mid cirib tiraysa wanaagii iyo wada noolaanshihii ummadda reer Somaliland.